jilaaga caanka ah ee reer Mareykan William Smith ayaa sheegay inuu akhriyay Quraanka bisha Ramadaan uuna ka mid yahay kitaabada samaawiga la yiraahdo ee uu akhriyo kitaabka Quraanka Tawreedka iyo Injiilka ayuu sheegay inuu dhammaantood akhriyo isagoo ka raadinaya inuu ku dego ruux ahaana jilaaga oo ka mid ah kuwa lagu jecel yahay Hollywoodka oo haysta diinta Kiristaanka ayaa sheegay in waayihii ugu dambeeyay uu mariyay culaysaad shakhsiyadeed oo soo wajahay una doortay inuu si nafsiya uga dhaxbaxo dhibaatooyinkaas oo dhan akhrinta Quraanka ayuu ku sheegay inuu fahamkiisa si weyn u furay waxyaabaha uu ka fahmay intuu akhrinayay Quraanka ayuu ku sheegay William Smith inay ka mid tahay magaca Nabi Muuse calayhi salaam aad Quraanka dhexdiisa loogu xusay taasina ay macno weyn u sameysay sheekooyinka inta badan laga qoray Nabi Muuse iyo qisooyinka ku saabsan Nabi Muuse ee Quraanka ku jira ayuu sheegay inay yihiin kuwo aad isugu dhow oo intii uu akhrinayay aad isku shabahayay sheekooyinka ku saabsan Nabi Muuse ayuu sheegay inuu mar walba aad u raacraacay meelaha ay kaga jiraan Quraanka Kariimka una aad ula tacajabay waxa kale oo uu sheegay Smith inuu bartay sida ay u xiriiraan nabiyada lagu xuso Quraanka gaar ahaan nabiyada ka soo farcamay Nabi Ibrahim kadibna ay u sii kala baxeen Isxaaq iyo Yacquuba waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan inuu fahamkaas buuxa ka helay nabiyada dhanka kale William Smith ayaa waxa uu xusay in Quraanku ku jeclaaday sida fudud uu qoran yahay ee aan haddana fahamkiisa iyo fasirkiisa uu cad yahay waxa uu tilmaamay inuu u cad yahay fahamka Quraanka sida qurrad nadiif ah oo kale oo ay adag tahay in qofi faham qaldan ka qaato isagoo raaciya hadalkiisa in nafsi ahaan wanaag iyo qurux ku dareemo Quraanka waxa uu sheegay in Ramadaankii la soo dhaafay uu akhriyay Quraanka iyo kitaabada kale ee diimaha ee loo yaqaan samaawiga muuqaal William Smith uga sheekeynay noloshiisa Quraanka iyo kitaabada diimaha kale ayaa aad ugu baahay baraha bulshada waxaana ka falceliyay dadyo badan oo muslimiin ah William Smith ayaa ah jilaa Mareykan oo ka mid ah kuwa ugu caansan uguna saameynta badan dunida filimada waa aabba leh 3 carruur iyo xaas sanadkii 1968 ayuu ku dhashay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxa aad loogu xasuustaa dhacdada sanadkii 2022 caan baxday ee dharbaaxadii uu ku dhuftay shaxtaroolihii Chris Rock oo daadihinayay munaasabadda abaalmarinta Oscar ee sanadkii 2022 jilaaga William Smith ayaa raaligelin ka siiyay majaajilista Chris Rock oo wajiga uu ka dharbaaxay Smith ayaa sheegay in falku uu ku kacay uu ahaa mid aan la aqbali karin isla markaana aan qiil lahayn waxaan jeclaan si shaac baxsan ku raaligeliyo Chris xadkii baan ka baxay oo khalad ayaan sameeyay ayuu ku yiri fariin dheer uu soo dhigay baggiisa Instagram-ka raaligelinta Smith ayaa timid kadib markii uu macadka aflaamta ee Oscar cambaariyay gacan qaadkiisa isla markaana uu shaaciyay inuu dib u eegis rasmi ah ku sameyn doono dhacdada kadibna uu qaadi doono talaabada ku habboon